السلام عليكم كلهم وعنا ونكسن داوداشان قروحda badan halka naga daawaneysaan waa Al Somali Channel Official fadna hadii taamir ku wareysa soo booqata channelkeena nagu dhiirigelisa subscribe like share and comment saan anaga nagu dhiirano inaan adinkana barnaamijyo kuwan ka qurux badan ay idin soo jeedino daawadaashan quruxda badan la soo dhawaada qalabta video cusub ay idin wadnaa videogan cusub ay idin wadnana waxaan diirada ku saari doonaa barnaamijyo inta badan soo batay dhalinta Soomaaliyeed maanta ku soo batay balse intaan u guda gelin barnaamijkeena waxa barnaamijka galabta ama channelkii marti uga ah balka yahay salaad cali oo fadhiya garabkayga bidix yahay salaad soo dhawow waxa soo dhawaatay Al Somali Channel Official daawadash quruxda badan ee ku daawanaya xaleeda aad ugu mahadsantahay Masr Ali waan ku dhawahay Al Somali Channel sidoo kale daawadash waxaan leeyahay waxaan ka mid ahay bahda Al Somali Channel maantana aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka qaato videoga maanta adoo santaa yaxay waxaan gudagal doonaa videogan aan diirada ku saari doono qodobka galabta miiska inoo saaran waxa uu yahay inta badan waxa soo batay dhalinta Soomaaliyeed in laga sii durgo saa hore idinku sheegnaba barnaamijyadan waxaan uga hadli doonaa dhaqanka iyo idaha sooyaalka Soomaaliya iyo taariikhda Soomaaliya iyo barnaamijyo kale oo idin ballan qaadnay galabta waxaan diirada ku saari doonaa barnaamijkeena baraha bulshada waxa ku soo batay dhalinta Soomaaliyeed dhalinta Soomaaliyeed oo inta badan dhaqankii lagu yaqaanay Soomaalinimada iyo dhaqankii lagu yaqaanay diinayna intaba ka tagay galabta marka barnaamijkeena waxaan diirada ku saareynaa waxaan aragnay dad soo qaaday hees laba wiil iyo laba gabdhood labada gabdhood waxa ay ku labisnaayeen dharkii loogu talagalay ragga macaadallah wiilashina waxa ay ku labisnaayeen dharkii loogu talagalay dumarka run ahaantii waxa ay nagu noqotay fajac iyo layaab iyo arin ama ka ku ah dhaqan diiniyan islaamiyan iyo Soomaaliyan intaba waxaan dhigi karnaa marka bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinta Soomaaliyeed maanta waxa ay ka tageen dhaqankoodii iyo diintoodii 100% aan dhigi karno sababtoo ah hadiis daliil ah ayaa waxa uu leeyahay qofkii rag ah ee isku ekeysiyo dumar waxa ku dhacay naclada Ilaahay qofkii dumar ah oo rag isku ekeysiyana waxa ku dhacday naclada Ilaahay war qofkii hadiiskaas ag maray isku soo sharaxay social media u soo fadhiistay isagoo dhar dumar wata ama qofkii dumar ahayd ee isku soo sharaxday ayadoo waliba dhar rag xiran run ahaantii waxaan dhigi karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa ay ka baxeen wadadii loogu talagalay iyo xadkii loogu talagalay yaxye run ahaantii waa arkaysaa waxyaabaha maanta ka socda wadanka waxyaabaha dhaqanka isbedelay runtii waxaan u maleynayaa in baraha bulshada ka aragtay ragga ku heesaya dharka dumarka ku heesaya ragga dharka ku heesaya taa maxaa dhihi karnaa dhalinta Soomaaliyeed maxaa ugu caan dhihi karnaa wallahi horta ayamahan dambe waxa socday dhaqan doorsi sax bulshada Soomaaliyeed waxa ku soo batay dhaqan doorsi aad u fara badan in raggi ay qaataan waxyaabaha dumarka loogu talagalay sax even waxa arkaysaa waxyaabaha dumarka loogu talagalay inay isticmaalaan oo ragga isticmaalayaan haato waxyaabaha cosmeticska clothes dharka haato a lot of things marka oo dumarka loogu talagalay waxa arkay ragga inay isticmaalayaan dabahantii waa waxaan hore loogu aqoonin ummadda Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed dabcan waxa isleeyahay waxa ariga koosgrey waagii hore waxa jiray wacyigelin oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed aad loo wacyigelin jiray haddana waxa weeye wixii wakobnaay oo waxa weeye hadda aaladan social media messaging so markii social media bulshada community Soomaaliyeed ay barteen waxyaabo badan arkeen oo qof wal maanta for example maanta haddii aan TV ka daawado qof kubadda dheelaya sax waxa isleeyahay hadda macnaha qaar dhalinta qaar marka fiirso fikirkooda sax markii arkaan qof kubad ciyaaraya qaabka u jirta in u jirtana rawaan soo marka waxa ariga koskri waxa isdhihi karnaa maadaama dadkii ku bateen maxaa la dhahaa arrimaha tiknoolajiyada oo macnaha marka waxaan tiknoolajiyada marka daawanaysid waxa loo baahan yahay si positive ah inaad u isticmaasho ama si waxa positive kana ka qaadato waxa negative ka ama ha ku noqdo culture-ka ha ku noqdo diintada ha ku noqoto ama maxaa la dhahaa adiga personally wax adiga oo negative kugu noqonayo ina habaab aadan qaadana wanaagsan so waxaan dhihi karaa marka aniga
waxaa yaraaday wacyigelintii bulshada la sii jiray waagii hore markii dadka la wacyigelinayo waxa lagu soo mari jiray gabayada teexda heesaha imaalaas lagu soo mari jiray marka wixii aad yaraaday marka si wanaagsan hadda marka waxaan dhihi karnaa dhalinta Soomaaliyeed waxa ka maqan doorkii wacyigelinta dhan diiniyan hadii aan lahay iyo dhan dhaqan waliba intaba hadii aan lahay si wanaagsan runtii awal waxa jiray dhalin Soomaaliyeed oo yaani sameeysa in ay marsadaan daawooyinka cosmetics-ka ah oo inta badan dumarka isticmaalaan taa waa laga soo tagay hadda waa laga gudbay oo waxay maraysaa hadda step raggii ay ku labistaan dharkii dumarkana ay ku labistaan dharkii ragga taa waliba ayagoo maankooda ku haaya in yani qofkii dumar ah ee shabaha qof rag isku ekeysiya iyo qofkii rag ah ee dumar isku ekeysiya in naclad Ilaahay ku dhacday marka maxaan dhihi karnaa dadka Soomaalida inta badan maadaama horta dhaqankii uu guuray diintina hadirtaan yani diiniyan waxaan inaysan u fiicneen ayagoo og ay ku dhiiradeen marka ma dhihi karnaa sidan hadii lagu sii socdo waxa qalqal galaya diiniyan iyo waliba jiilka anaga naga dambeeyay in dhaqankan yani ayagana ay sii qaataan sababtoo ah hadda maanta dhalinta Soomaaliyeed age-ka hadda jooga hadii ay sheekadan sii wadaan age-ka ku xiga markuu imaado waxay noqonaysaa in dhaqankii ay kaga daydaan soo sidaa ma dhigi karno waa sax runtaada hadda iyadoo sidaas jirto dad waxaa jiraan qaar xadiidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa qofkii rag isku naag qofkii dumar ah isku ekeysiiyay rag ama rag wuxuu xirta qaata lacanta Allah ku dhacday sidoo kale dumarkina kadalika waxaa jiraan rag ama dad qaar waxa la waayay dadka la wax u sameeyaan dad waxa waayay waxa kas u sameeynaya iyo dad wax jaahil ka ah laakiin hadda inta badan waxay u badan tahay waxa loo sameeynayo in maadaama qof walba uu doonayo inuu magac helo hadda yani dan ku kalifayso ma jirto in yani uu sameeyo laakiin dadka hadda inta badan social media isticmaala inta ugu badan hadda dhaqan ay ku sameeyaan hadii rag ahaan lahaayeen hadii dumar ahaan lahaayeen inta badan waxay u sameeyaan inay magac ku helaan balse magaca bari ka maalin yani dhibaatada uu geysan karo iyo maxaa la yiraahdaa saameynta ka imaan doonta يعني وسامين كو يلان دونتا جيلka Soomaaliyeed ee maanta jira waxa jirta oraha dhaheesa si wanaagsan badana Soomaalida dad ka fikira maahan waxa ficilka sameynaya outcome-ka waxa ka soo baxay kama fikirayaan si wanaagsan mostly Soomaalmanka maanta u fiirsato qof baa ficil sameynaya waxa leedahay ficilka maxaa ka wada camaan si wanaagsan ama waxa leedahay ficilkan gadaashi bal ii sheeg waxa noqonaysid ama waxa ku soo bixi doona bal ii sheeg ma sheegi karo ma taxliil karo marka aniga waxa nagu yar waxa la dhaho methodology-ga marka isticmaalna cilmi baaris oo kale marka sameynayno marka cilmi baaris sameeynayo waxa waxa marka soo barto waxaan waa soo barta adiga marka soo barto waa in analyze gareey karta waxaan so kadalik marka فعلك ما أنت أسمينيسد وفعل قون سديد فعل كان أن لاس جراي فلقي فكسابل ها محسامي يقول دونا outcome كصباح دون محون قد دونا هذا هذا فعل كان لما complete جراي محا هذا صباح دونا وأنا كفكرنا so أنا مركو حندي كرام iyadoo sidaa jirto badanaa markaa fiiriso hadda macnaha marka u laabno curriculum-ka dalka hadda badanaa mostly waxa sameyn waxa waa youth way dhalinyaro way dhalinyartii marka dhalinyaro waxa arkay mostly hadda aniga inta badan jaamacada aan qaar iskuuliyadan qaar jaamacada aadaan horta alxamdulillah waxa waa hadda badanaa waxa u soo jeesto waxa waxbarashada way iyadoo sidaa jirto hadda waxbarashada waxa way wixii looga baahnaa ama wixii looga baahnaa in waxbarasho laga qaato kama qaadanayaan for example qofka maanta markuu jaamici yahay waxa la barayaa ficil markaas sameynaysadaya inta ku sameyn horta ka fikir ficilkani muxuu yahay muxuu noqon doonaa waa sida u sameyn doonaa for example haduu ficilka ficil positive yahay haduu outcome-kiisa positive noqonayo ama wax ku wanaagsan noqonayo oo nafsada ku soo laabanayo oo manfac leh noqonayo waana waxa way ku sii socotaa asmaysa ficilkaasi laakiin hadii ficilkan adiga falaqeeya hadaa ogtaa in waxaan ficilkan haduu kii ku noqon doono saameyn adiga ku soo saameyn xun oo kugu yeelada noloshada ina kaato marka waxa dhan hadda aniga waxa jirto maalo hor oraha iga yaabsi
mara yaraa saxibna wada hadlaynay markaas wuxuu dhahay TikTok daawanaya TikTok daawada markaas waxay inuu TikTok maxaa ka faa'iidaa aniga ma daawado laakiin waa dhigta ka maqlaa bis aniga TikTok ugu jirta aaladaha inta badan bulshada Soomaaliyeed aad u runta si wanaagsan TikTok ani wax iga yaabi waan ku arkay laakiin ku sheegi doona ku soc aad weyn marka yarkii wuxuu leeyahay niyo waxaan daawada muuqaal yar dhahaya haddii Soomaalida meel hadda Soomaalidu haddii adiga aad naar u socoto waxay ku leeyahay keep going so waxaan dhihi karaa marka waxay tahay waxa way waxay naga maqan waxa way critical thinking waxa way absolute naga qaldan aniga way waxa way qof maanta haddii maanta aad fikirka ka qaldiyo nolosha dhan wuxuu ka waxa way fikir weey